بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحنا kala duwan ee halkan fadhida ugu horeeyaan murashaxiinta xilka madaxweyne 2020-2021 xildhibaanada wasiirada dhammaan ka soo qaybgalayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada haweenka dhalinyarada bahda saxaafadda waxaan aad ugu faraxsan kulankan maanta halkan ka dhacay oo lagu soo gabagabay socday 6 maalmood oo si qoto dheer loogu lafagulay hanaanka doorashooyinka dalka 2020-2021 iyo sida ay uga waacatay dowladda dhexe sidii la rabay inay hogaamiso taas oo ay arkeen murashaxiintu in haddii aan loo istaagin in la saxo dariiqaas qalloocday dalka ay geli karto xasilooni la'aan siyaasadeed iyo wax aan la garan karayn murashaxiintu xilligii la soo dhaafay waxay aad iyo aad uga hadlaayeen tillaabooyinka habboon ee ay tahay in la qaado ayadoo laga faa'iidaysanayo khibradii soo martay murashaxiinta ee dadka Soomaaliyeed dhammaantood iyo doorashooyinkii soo dhacay laga soo bilaabo 6 ilaa hadda taas oo ay u caddaatay mar walba oo dhaco boob maxaan ku yiraahdaa doorasho natiijadu inay tahay natiijo aan fiicnayn maadaama aan wada ognahay dadka Soomaaliyeed wacigoodu inuu u bislaaday dawlad madani ah ilaalisa xuquuqda ilaalisa sharciga midaysa dadka Soomaaliyeed waxaan laga maarmi waayay murashaxiintu inay cod dheer ula istaagaan halkan ay u sheegaan dadka Soomaaliyeed inaysan ku qanacsanayn sida dawladda ay hogaaminayso arrimaha doorashooyinka waxaa sidaas oo kale murashaxiintu ay hoosta ka xariiqeen in xilligii la soo dhaafay ay ku ixtiraameen dawladda xilkeeda ayna mar walba diyaar u ahaayeen inay ku garabsiiyaan sida uu gudan lahayd waajibaadka qaran ee la saaray mar haddii la gaaray gabagabadii xilkii doorashada la raba in la aado doorashadu waa inay u dhacdaa si hufan yahay kalsooni leh ayadoo la raacayo sharciga iyo dastuurka iyo soo jireenka taariikheed dadka Soomaaliyeed u leeyihiin doorashooyinka hufan sida laga dhawaajiyay waxaa la filayay dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah laakiin nasiib darro taas ma dhicin waxaa loo laabtay nidaamkii hore haddana nidaamkii hore ma naqanin mid qanciya dadka murashaxiinta ay raba inay galaan doorashooyinka bal wuxuu noqday nidaam lagu kala yeelay dawladda meesha joogta iyo madaxdeeda taas oo aan ognahay dawladda haddii la dhisay inay u baahan tahay kalsoonidana waxay ka timaadaa boroseeska dawladnimada sidaas darteed waxay soo jeedinayeen talooyinka aad aragteen oo la soo jeediyey oo kulligooda ujeedadoodu yihiin in laga kasoo horjeeda dawladnimada kasoo horjeeda wada socodka iyo is-aaminitaanka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dadka halkaan isugu yimiday ma wadaan colaad ma abaabulayaan colaad waxay abaabulayaan nabad laakiin xaqiiqada ay gaareen waxay tahay hadday ka aamusaan oo sidaan ay wax ku socdaan dhibaatada ay maakarta inaan laga aamusi karin marka dadka Soomaaliyeed in looga digo loona istaago sidii looga badbaadi lahaay tariiqu inuu darbiga ku dhaco baabuurku darbiga inuu ku dhaco diyaaraddu inay meel khatar ku dhacdo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waxay la dhibaatoodeen cadaalad darro dulmi ma aaminsan inay xal tahay wali in meeshii la aado waxaan aaminsanahay xilligana soo dhaafay inuu noogu filnaay dhibaato iyo kala irdhoobin iyo burbur maanta waxaan u baahannahay si aan uga soo kabanno in la abuuro kalsooni taasuna waxay ku imaan kartaa in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo nidaamka doorashooyinka haddaba dadka Soomaaliyeed oo dawladnimada aad u jecel waxaan aad iyo aad uga xunnahay in maanta lagu guda jiro in la marin habaabiyo la boobo doorashooyinkii dariiqeedana oo muuqdo derbiyadana la soo istaago lagu faano taas waxaan leenahay lama aqbali karo suuragal ma aha
doorashada dawladdu waa inay dhexda soo dhigtaa gudiyaduna waa inay ahaadaan gudiyo laga tashaday lagu kalsoon yahay dad dignity leh sharaf leh dhexdhexaad ah Soomaalidu taqaano cadaalad sameey kara talooyinkii aan la wadaagnay ama inala wadaageen dadka aan la kulannay ee kala duwan waxyaabaha aan ka faa'iideysano waxa kamid ah oo runtii aad iyo aad aan rabo inaan hoosta uga xariiqo gaar ahaan si gaar ah waxaan rabaa midaal ay soo qaateen oo ah haddii qofka garsooraha laga shakiyo qofka loo garsoorayo xaq waxa uu leeyahay inuu yiraahdo garsooraha waa ka shakiyo guddiga doorashooyinku waa garsoorayaal marka horena shuruuda lagu haddii cid ka cabanaysa ay jirtana waxa lagu khasban yahay in la dhageysto annaga guddiga doorashooyinka habka loo xalay kuma qanacsanin waxaan aaminsanahay sharciga in loo jabiyay ujeedo gaar ah in loo sameeyay marka waxaan soo jeedinaynaa in la bedelo gebigoodaba maanta qofka kursiga ku fadhiya kan beri u soo socda waxaa sharaf iyo wanaag ugu jira inay xaq u laabtaan waxaan rabaa miisaal yar inaan idiin sheego Umar radiyallahu anhu wa ardaa waxyaabaha uu dardaarmay waxaa saxaabada haddii aad khalad gasho oo aad ogaatay inaad khalad gashay khaladkaaga ka laab sababtuna waxa waaye inaad khaladka ku adkaysatid iyo inaad xaqa u laabatid xaqa inaad u laabataa fiican ayadaana dadnimadu ku jirtaa annaga dawladdu hadday sharciga ilaalisay oo heshiiska ilaalisay ma haysano laakiin hadday jabisa ka warrama waxaan ka hadlayna waa sharci waa heshiis waxaa ku heshiiyey dawladda ku meel gaarka dawladda iyo waxaa ku heshiiyey maamul goboleedyadii waxaan rabnaa heshiiska sidoo ah in loo fuliyo dhaqan waxaan u yeelanay Soomaali haddaan nahay heshiis in la galo haddana meel la iska dhigo arrintaas waxaa ogaateen dhaawac weyn ah dadka Soomaaliyeed ka soo gaaray arrin fiicanna ma aha waxaa la rabaa wixii lagu heshiiyo sida loogu heshiiyo in loo fuliyo dawladnimada asaaskeeduna waa wax lagu heshiiyo la fulinayo wax kale ma aha marka annaga waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo sharciyada in la ilaaliyo heshiisyada in la ilaaliyo doorashooyinka si nabada oo xalaal ah oo xura oo kalsooni leh in lagu qabto waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo doorasho in la qabto horta maxay u baahan number 1 waxay u baahan kalsooni miyaa jirta doorasho lagu galo doorasho aan kalsooni lagu galin maxay keeni kartaa balii sheeg fawda keeni dalkan miyaa fawda ximbaari kara waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan eray bixinta cusub ficil colaadeed iyo eray colaadeed dawladdu waxay isku dartaa ficil colaadeed iyo eray colaadeed say isugu dartaa ficilka colaadeed waxa waaye inay garab marto sharciga si ay wax u boobto ficilka colaadeed kaas waaye erayga colaadeed maxaa waaye raaliga ahaado waa fududaanaya dhalinyaro masaakiina oo waxaan macna lahayn loo sheegay oo dadka caaya la leeyahay billaahi calaykum dawlad rabta dadka inay ku xukunto caayka warrama ya dawladda waxaa la rabaa dawladdu sideedaba akhlaaqay u taagantay ogaada annaga dad muslima aan nahay nabi maxamed madaxna waa sooma nabi maxamed wuxuu yiri inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq wax kala bal ay soo saareen oo meeshaas waxaan dhihi karnaa salaadu waa akhlaaq soonku waa akhlaaq zakadu bixis waa akhlaaq dhaqanku bixis waa akhlaaq laakiin nabigu muxuu yiri inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq macnaha ilada ummatu muhammad qofki ah looma ogola dad inuu caayo hantidii qaranka canshuurtii dadka in lagu bixiyo madax lagu caayo aan farisaa kuntu wax aad looga xumaaday dawladda waxaan ugu yeeranaa arrintaas ay joojiso campaign la ogol yahay waxaaga banaanka soo dhigo laakiin madaxda gabagabadii marka waxaan rabaa inaan tago madaxweynaha saaxiibkay maxamed cabdullaahi farmaajo meeqa jeer dalkan doorasho ka gala baliyaad
laba jeer iyo midka saddexaad oo asaga madaxweyne labada doorasho horeysa midna anaa joogay midna madaxweyne xasan aa joogay madaxweyne waxaan ku weydiinaynaa wax ku dhiba miyaa aragtay ya madaxweyne waxaan ku leenahay doorashada dhexda noo soo dhig dagaal miyaa taas tabeelahaga ma la diiday su-aashaasaa lee soo dhiibay annaga fiirsha madaxweynaha wuxuu naga heliyo dhan ragga anaa ka qaadanaya waa ka cafina wixii hadda ka horreeyey waxaan rabnaa doorashadana soo dhex soo dhigay ka warrama warkaas cabdiraxmaanow okay miya soomaali maanta isxafisay u baahan tahay madaxweyne maanta isxafisaa loo baahan yahay bannaanka u soo bax dadka la hadal doorashada dhexda soo dhig dadka isu keen aad doorasho wada qana haddaa guulaysto ku taageeraynaa haddii lagaa guulaystana waa lagu karaamaynaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u laabto waxaa jira shaksi runtii aad noola shaqeeyey aad u qiimo badan waqti badan ku bixiyey shirkan waqti badan ka shaqeeyey waxaan isla garannay in la guddoonsiiyo shahaado sharaf ruuxaas waxaa la yidhaha cusmaan xasan cilmi waa guddoomiyaha xisbiga kulan magaca musharaxiinta rabaa inay ku guddoonsiiyo shahaado sharafkaas asoo dhawaado waaba taagin وما سنتي بارك الله فيك waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo golaha midowga musharaxiinta sida ay ii maamuuseen ii sharfeen oo maanta ay dadka iga dhex tilmaameen waxaan kala rabaa inaan hortiina u mahad celiyo dadkii la shaqeeyey oo